howlaha guud dhulka iyo guryeynta ugu horeeya wasiir Cabdullaahi Bakar runtii horeyba sidaan u sheegnay magaalada Burco waa magaalo baaxad leh runtii waxa ku soo beegmay waqtigeedana ay ku soo beegantay in laga saaro qorshe magaaleedkii 15 sano ee soo socda mar labaad iyo saddexaad waan ku faraxsanahay waxaan diyaar u nahay wax kasta oo nolol ka baahdo haddii amni tahay haddii ay tahay la shaqeyn intaba inaan diyaar u nahay haddaan nahay maamulka gobolka iyo degmada isku duuban waan ku faraxsanahay insha Allah taala sida maayo uu sheegay oo kale iyadana codsiga maadaama xabaaluhuna ay yihiin magaalo kale oo barbar socota magaalada Burco iyadana in qorshe loo sameeyo aad iyo aad runtii arrinkaasina muhiim isagoo u yahay in qorshaha ay ku darsano aad iyo aad baa u mahadsantihiin waxaan rajaynayaa reer Burco diyaar inay u yihiin masar balanka iyo qorshe hawleedka magaalada cusub ee lagu soo kordhiyay aad iyo aad baan idinka mahadcelinayaa mar labaad iyo mar saddexaad aad iyo aad baan ugu faraxsanahay runtii wasiirada halka laga dhawaajiyay markii laga reebo wasiir Yurub Abi waa wasiirada reer Togdheer weeyaan runtii si gaar ah waxaan ugu mahadcelinayaa oo ka faa'iideysanaya fursadan wasiir Saad Cali Shire iyo wasiir Saciid Sulub oo runtii 6 sano kadib maamulka gobolka inuu yeesho iyo wasiirka arrimaha gudaha inuu maamulka gobolka Togdheer u yeesho xarun cusub oo laba dabaq ka kooban runtii aad iyo aad bay arrinkaas noogala shaqeeyeen mar labaad iyo mar saddexaad saddexda wasiir iyo cid kasta oo ka qayb qaadatayba aad baan iyagana aan ugu mahadcelinayaa dhammaan aad baa u mahadsantihiin